السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. casharkeena waxaan ku duubi doonaa lesson-keenii u dambeeyay ahaa web penetration testing ama web hacking. marka waxyaabaha ugu dambeeyay aan maalintii ugu dambeysay habeenkii ugu dambeysay isticmaalnay waxaa ka mid ahaa oo techniques-ka isticmaalnay waxa loo yaqaano Google Docs iyo waxa loo yaqaano inagoo Google Docs isticmaalayna kadibna ka ogaanayna website-ku waxyaabaha ay ku daciifsan yihiin ama meelaha ay vulnerable ka yihiin ay ka nugul yihiin. sidoo kale waxaan isticmaalaynay Google Docs kaas oo kale inaga oo ku ogaanayna SQL injection waxa loo yaqaan. SQL injection kuna waxaan kusoo sheegnay inay tahay error ka dhex taagan connection-ka database-ka iyo website dhexdiisa. kaas oo kale markaad error-ka iyo waxyaabaha soo dhan hesho ayaa waxaad ogaanaysaa in uu vulnerable yahay ama haddii SQL injection ama SQL error ka dhex jiro website dhisan oo hawada ku jira waxaad ogaan kartaa inaad daqiiqado wax ka yar aad ku kala tuuri karto. marka haddii waxyaabahan oo intaanad samayn waxa must ah in environment-ka aad isticmaalayso aad adigu secure ka dhigto. so waxyaabahan waxa laga yaabaa in tixraac hadhow lagu sameeyo ama virus iyo waxyaabaha lagu soo diro kadibna khatar gelin kara computer-kaaga. marka ugu horreyn waxaan sameynaaba waxay tahay inaynu sameyno VPN aan isticmaalno. marka aniga VPN halkan yaal ayaan isticmaalayaa. VPN-kan ayaan hadda isticmaalayaa sidaa la aragtaan waa VPN very powerful idinkana mid ayaan siiyey. shayga labaad aan doonaya inaan iminka soo furo ayaa wuxuu yahay waxa loo yaqaano Shadow Defender oo hore idin siiyey isagan. Shadow Defender wuxuu sameynayaa restore point ayuu ku sameynayaa system-keena. aniga sidaas ayaan tigta saarayaa kadib wuxuu sameynayaa xaaladaas uu computer ku jiro ayuu save garanayaa. so haddii hadhow waxyaabahan aan sameyno oo dhammaan virus iyo waxyaabahaas aan kala kulmaan kaliya ta hadhow computer-kaaga shutdown ama restart ayaad u diraysaa wax allaale wixii saacadan marka la save gareeyay ama xaaladan markuu save gareeyo uu save mode-ka geliyo ka dambeeyo oo dhan hawada ayaa laga saaray. so marka waa inaad garan karto waxyaabahan marka sameynayso in aad sidaada geliso shadow mode oo sameynaya restore point. waayo marka waxaan sameynayaa tigta ayaan saarayaa mode setting-ka intaan imaado ayaan tigta saarayaa kadibna waxaan leeyahay enter shadow mode dadna okay ayaan leeyahay. in yar baan sugayaa markuu meel dhow dhammaanayaa kadibna wuxuu soo dhigayaa meelahan button yar ay ku qorantay shadow mode. yes marka waa kaas button-ka inaga helay shadow mode ayaa ku qoran. it means xaalad safe restore point ayuu ku jiraa. so marka haddii aynu ku noqono environment-geeni kale waxaan sameynaa waxay tahay inaga ku faa'iideysana doorkiska iyo waxyaabahaas ayaa waxaan sameyn doonaa. halkan waxaa yaala laba doorka oo aan isticmaalay. kan ugu horreeya waxaan isticmaalay fruit php and question mark id -1 id equal 1 ayaan leeyahay then enter ayaan leeyahay. marka doorkaskan oo kale waxaad ku ogaanaysaa oo kale SQL error ka jira website-yada aad hacking ku sameynayso. marka waqtiyadan oo kale waxyaabaha ugu fiican oo kale aad ka muhiim waxaa ka mid ah in internet-ka isticmaalaysaa uu very fast noqdo. so anigu xilligan aan duubaya ayaa waxay tahay waxa weeye 2:25 oo habeenimo ah. xilligan oo kale dadku aad bay hurdaan buuq iyo qaylo badan ma jirto waxa laga yaabaa internet-ka isticmaalaysaa inuu fast yahay. so xilliyadan oo kale waa xilliyada ugu wanaagsan ee waxyaabahan oo kale uu qofku sameyn karo. marka waxaan sameyn doonaa waxay tahay website-yada ugu horreeya soo baxa ayaanu tijaabo ku sameyn doonaa. so imika markaan ku qoray intaas dhowr kiiska aan ku qoray waxay soo baxay website-kan. marka website-kan ayaan geli doonaa kadibna isaga ayaan tijaabin doonaa. so website-kan waa kan ma garan karo wuxuu ka shaqeeyo kolley malaha kolley waa food iyo cuntooyin iyo waxa ku shaqeeyaa. marka waxyaabaha aad ku ogaanayso inaad ku tijaabin karto in SQL ka dhex jiro markuu website-ku caynkan yahay ayaa waxay tahay halkaas ID-ga ayaa waxaad gelinaysaa single column kadibna dib ayaad enter u leedahay. kadib markiiba aniga halkan waxaad ku arkaysaan indhiina waxaad ku aragtaan you have an error in your SQL syntax. check the manual the block corresponding to your
MySQL server version authorize syntax to use near line 1. marka waxaad arkaysaa inuu database-ka website-kaas ku fadhiyo inuu error ka jiro. waxaad samaynayda waxay tahay markaad caynka ay noqoto waxaad soo copy garaynaysaa intaas linkiga inta ugu sarreeya aad soo copy garaynaysaa, right click ayaa leedahay copy aad leedahay. kadib waxaad iska soo furataa Linux-kaaga ama environment-ga Linux-ka. markii aad soo furato ayaad waxaad samaynaysaa username-kaaga iyo password-kaaga ayaad gelinaysaa waad furanaysaa. intaa markaad samayso waxaan tegaynaa terminalka, kadibna waxaan isticmaalaynaa tool loo yaqaano SQL map. marka haddii aan soo dhaweeyo sidaas si fiican ila aragtaan, halkan waxaan ku qorayaa SQL map ayaan isticmaali doonaa. marka SQL mapka waa toolka ugu badan ee waxyaabahan SQL injection-ka iyo waxyaabaha marka la sameynayo ugu fiican. marka waxaan leeyahay SQL map dash u ayaan odhanayaa, kadibna waxaan ku baasta garanayaa website-ka aan siday space ayaan baxayaa, waxaan leeyahay dash dash, kadibna waxaan qorayaa inaan helo maxay DBS ama database-ka. intaa markaan qoro ayaan enter siinaya. marka waad arkaysaa inuu bilaabayo. marka do you want to escape test payload for DBS? halkan n baan taabanayaa, no baan leeyahay. sidoo kale kana no ayaan leeyahay. marka mar walba wuxuu ku xiran tahay waxa weeye inaad haysato khad aad u speed sareeya oo aad u fiican. marka waad sugaysaa waayo wuxuu sameynayaa penetration buu ku sameynayaa SQL-ki ayuu dhex gelaya. marka qaabka noocan kale wuxuu sameynayaa inaad soo hesho database-ka website-kaas uu ku fadhiyo, kadibna database-ki halkaa ka dhex galno oo aynu xogta ku jirta waxyaabahaas oo dhan aan ogaan karno. waxaan ogaan karnaa database-kaas ama website-ka username-ka iyo password-ka loo isticmaalay waxyaabahaas oo dhan. marka wuxuu ku leeyahay get ID is vulnerable, do you want to keep testing the others? in ayaan leeyahay, iyadana no ayaan leeyahay, enter ayaan dib u gelinay. marka imika ugu horeeya halka wuxuu soo qabanaya waa kaas the back end database is MySQL way. marka dhow wuxuu sameynayaa inuu soo qabto database halkan indhaha ku haya, waxaad arkaysaan inuu database badan soo qabtay. way sidaan halkan wada socotaan, halkan waxaad aragtaa database fara badan soo qabtay. waxaana waa 15 database meelahaas oo website-kan ku xiran. marka waxaa ku jira database-ka loo yaqaano information scheme oo marka website-ka hawada la gelinayo ama la sameynayo kale database-kaas ayaa la geliyaa database-ka information-ka website-ka. database-yadan kale oo dhan waxa isticmaalaya oo ku fadhiya waxa weeye website-ka. bal waxaan sameyn doonaa inaan si randomly aan u doorano ama aan ka raadino database-ka userska iyo waxyaabahaas ku jiraan. si fiican ayaan fiirin doonaa waayo waxaan filayaa inuu kaa yahay ama uu noqon karo. waan tijaabin doonaa kuwa kalena. marka waxaa ku qoran bro staff store. waxaan sameynayaaba waxay tahay arrow-ga ayaan isticmaalayaa sare oo koodhka ayaan dib ugu soo celinayaa, kadib waan baabiinayaa, kadibna hal dash ayaan ka tegayaa, d weyn ayaan qorayaa, kadibna waxaan qorayaa database-kaas ayaan soo copy garaynayaa. tusaale waxaan doonaynaa inaan kan ka shidaal qaadano oo bal aan tijaabino userska ku jira inuu kan yahay, kadibna halkaas ayaan ku baasti garaynayaa. markaan baasti garayo waxaan leeyahay dash dash
kadibna waxaan leeyahay tables oo ah inuu soo helo database-kan tables ku dhex jira kadibna inter ayaan dib u siinayaa sidaad halka ku aragtaan wuxuu sameeyey scan ku sameeyey inuu soo helay tables ku xidhnaa database-kaas oo dhan tables-ka waxaa ka mid ah mid loo yaqaano login option group options order detail orders product category iyo waxyaabahaas iyo users marka bal waxaan eeganaa maadaama aynu soconno inaan helo bal adminka iyo waxyaabahaas passwordada ku jira bal waxaan tijaabinaynaa tableka loo yaqaano loginka marka arrowgii ayaan dib u taaban doonaa kadibna waxaan masixi doonaa tableska kadibna hal ayaan dash ayaan ka tegi doonaa kadibna t weyn ayaan qoraya t weyn markaan qoro waxaan soo qaadayaa loginka halka ayaan marka tableka sida uu qorayay sidiisa ayaad qoraysaa marka waxaan leeyahay login ayaan leeyahay marka tableska login leeyahay dash waxaan leeyahay waxaan doonaynaa columns inta column ka kooban yahay kadib ayaan enter dib u leeyahay marka wuxuu soo tixi doonaa database-kaas columns-ka iyo waxyaabahaas ku jira so halkan waxaan soo qabtay columns-ka ku jiray columns-ka marka waxaa ka mid ah id password iyo username waxaa laga yaabaa passwordkaas iyo username-kaas inay noqdaan kuwii lagu geliyey website-kaas marka haddana arrowga ayaan dib u isticmaali doonaa kadibna waxaan baabiin doonaa columns-ka kadibna waxaan leeyahay z weyn ayaan kaga tegayaa si capitala kadibna column-ka magaciisa ayaan gelinaya tusaale markaa waxaan qorayaa passwordka ayaan doonaynaa xogta ku jirta inaan helo password sidoo kale hakad waxaabaan leenahay isagana username-kana noo raac intaa markaan nidhaahno waxaan leenahay dash dam marka wuxuu samaynayaaba waxay tahay wuxuu soo listi garaynayaa daatada iyo xogta ku jirta labadaa fiil ayna dooranay ama labadaa column ayna dooranay marka inter ayaan leeyahay waan eegaynaa inaan ku guuleysanay in kale yes ugu dambeyn waxaan helay website-kaas passwordadii iyo username-kii ku jiray ama adminka so waa very weak weeye aad buu tabcaanayay marka waxaan samayn doonaa waxay tahay waxaan tijaabin doonaa bal website-ka labaad inaan website-ka labaad marka asagana waxaan qoray dhowrkaas loo yaqaano caris oo php id ayaan qoray marka isagana waan tijaabin doonaa kan ayaan tijaabinayaa tusaale si randomly aan dooranaya kadibna waxaan samaynayaa waxay tahay sql error inuu ka jiro ayaan eegay you see here halkan waad ku aragtaa inuu ka jiro isagana sql error haddaba waxaan sabab muhiim ayaa waxay tahay xogtan iyo waxay daatadan oo dhan waxaa lagugu safgaranaya waa root-ka sql mapka output-ka deedna fileka website-kaas uu leeyahay ayaa lagugu safgaranaya marka ma doonayo inaan website-kan dhex galo ma doonayo laakiin keliya ujeedadan aan doonayay waan gaadhay qofka real hackerka waxyaaba marka tahayna keliya ta waxaa waa la tijaabiyaa laakiin waxba lagama bedelo inta ugu badanna waxyaabahaas oo kale lama sameeyo so markaad aragto inuu vulnerable yahay keliya ta iska dhaaf waxbaa ku samayn waayo adigu waxaad doonaysaa inaad baragtaa si waxyaabaha ku samayso haddii aanad dee wax kaloo weyn ka doonin marka waxaan samaynayaa waatay kana waxaan samaynayaa si leeg ayaan soo koobi garaynayaa markaan soo koobi garayo isagana waxaan leeyahay file ayaan tegayaa new tab ayaan leeyahay marka isagana waan soo weyneynayaa si aad fiican uga aragtaan waxaan qorayaa sql map dena waxaan leeyahay targetkaas kadibna waan ku baasti garaynayaa space ma baxaya waxaan leeyahay dash dbs oo far yar inter ayaan dib u leeyahay isagana waxaan eegi doonaa inaan ku guuleysano inagoo ka faa'iideysanayna cilada ka jirta sql-kiisa marka kan wuxuu leeyahay are you sure you wanted to continue with further target setting
yes ayaan leeyahay. kan oo kale in ayaad iska taabanaysa wuxuu leeyahay maxaad doonaysaa inaad waxyaabahaas iska dhaafto payloadkii waxyaabahaas may baan leeyahay. kanna in ayaan leeyahay isagana. marka kadib wixii dib waxaan sugaynaa waxay tahay waa inaan helno xogta iyo database-ka waxyaabahaas. marka runtii waxyaabahan oo dhan aad ayay vulnerable u yihiin. ifan xitaa waxaan arkayay oo aan haddeer arkayay website Soomaali leedahay oo aanan halkan kusoo gudbin doonin waxay yihiin, laakiin aan aad ula socday oo aan aad u arkay weliba website-yadaasoo website-yada dadka ugu inta badan ay ku xidhan yihiin ay yihiin. marka waxyaabahan oo kale waxaad samaynaysaa waxay tahay testingka noocan oo kale markaad samayso wax la sameeyaa waxay tahay maadaama security professional tahay cidda website kale ayaa lala xiriiraa kadibna waxaa la yidhahdaa website-kaaga cilad noocaas haysata ama halkaa halkaas ku nugul yahay waxaan doonaya inaan kuga secure gareeyo markaa inaad commission bixiso. marka qaabkaasoo kale waa looga shaqaysta dadka oo white hat hacker oo kale waa lagu shaqaysan karaa. kanna in ayaan leeyahay wuxuu leeyahay waxaad doonaysaa inaad numberka requestiga aad yarayso maya baan leeyahay. mar kastoo khadkaaga aad u fiican yahay ama speedkiisu fiican yahay waa mar kastoo waxyaabahan testingka aad wax badan ku dheeraan karto. sidoo kale waxaa kala duwan oo iyaguna kala duwan waxa weeye website-yada iyo security-gooda iyagoo waxaba wada haysan karo SQL error ayaa haddana kala secure badan yihiin. laga yaabaa iyadoo SQL error-kaas haysto inay dhinacyo kale oo security-ga iyo waxyaabahaas ay ku wacan yihiin. marka waxaa laga yaabaa inay adkaato qaabka aad u hesho iyo waxyaabahaas oo dhan ama culays kugu keeno. halkan waxaad arkaysaan inuu error dhacay marka wuxuu ku leeyahay all tested parameters do not appear injectable. dhammaan waxa laala waxaan tijaabinay oo mana ay ka qaar yani la inject gareyn karo. try increase value yani strongly waxa isku dadaa ku leeyahay value-ga iyo waxyaabahaas inaad ku dhiso. marka waxaad arkaysaa website-kan oo haystay SQL error in uu yani u sameeyey inuu iska jaray. reason-ka ugu weyn ee uu iska jarayna waxa weeye inta ugu badan waxa weeye haddii uu kaa cuslaado kale yani khadka oo kale waxyaabahaas oo kale wuu samayn karaa arrinkan. sidoo kale waxaa la sameeyaa dib ayaa lagu celceliyaa. marka weyn bal dib ayaanu tari garayn doonaa. no ayaan leeyahay kana no ayaan leeyahay. waxaan eegayaa intuu ii soconaya ayaan eegayaa bal inaan helo dhowr kas kale. waxaan sameynayaa qaar kale ayaan sii baarbaarayaa. waxyaabahan kale waa very important leeyahay. kan oo kale ayaan soo qabanayaa isagana tusaale. marka isagana waan tijaabinayaa. waxaa jiroo kale iyagana waxaa laga yaabaa website-kaaga SQL error ka jiro ama SQL error ka jiro in uu soo qoro error-kii oo haysta qoraal ah iyo in markaa daatada meeshan taalla ay masaxanto. marka labada waa isku mid laakiin marka haddii aan eegno marka daatadii halkaa taallay aan ka saaro intaas waxaad arkaysaa inay sawirka dib soo noqonayo. haddii aan dib ugu celiyana waxaad arkaysaa in uu halkiis ku celinayo. marka waxaad halkaa ka dareemi kartaa in uu kan laftirkiisa SQL error ku dhex jiro isagana waan soo koobi garaynaa waana ku dhinac qabanaynaa. waayahay kana sidoo kale
waxaad arkaysaa haddana kii dib uga soo jaray marka balka kale ayaan isagana tijaabin doonaa. in ayaan leeyahay ugu dambeyn waxaan sugnaa waxa weeye inaan hello yani databasekaas. marka mar dhow wuxuu sameynaya inuu soo dhigo yani database-kii. marka waa ka fetching current database wuxuu sameynayaa inuu fetching ku sameeyo. it means waxaad moodaa inuu khadkiga yar cuslaanayo iminka, laakiin kan si fiican ayuu hayay. waan ku celin doonaa. yani wakaas halkii ayuu naga soo qaadayaa. marka weli wuu baarayaa database-kii. waxaad moodaa inuu iminka soo qabanayo. hadda wuxuu soo qabtay information scheme-kii. iminkana wuxuu baarayaa databaseadii kale ee website-kaas la tacalluqay. markaa si fiican indhaha uga haya. isagana waan kala tuuri doonaa hadda alku dhigo. waxaad aragtaa inuu soo qabtay iminka information scheme-kii iyo database-ka website-ka oo la yahaa fat. so waxaan sameynaynaa waxay tahay sidii hore. marka arrowga ayaan xagga sare taaban doonaa, kadibna waan tirtiri doonaa dash d weyn baan leeyahay. kadibna waxaan gelin doonaa website-ka yani database-ka magaciisa. dash ayaan leeyahay capital letters oo tablesa ayaan gelin doonaa iyadana. inter ayaan dib leeyahay. markaa dib aan check gareyn doonaa haddii la ka dhigo. marka iminkana wuxuu soo listay gareyn doonaa inta table ku jirta. database-kaas iminka wuxuu soo qabanaya waa tableskii ku jiray database-kaas. waxaad arkaysaa inuu isna soo dhigay inta table ku jirta iyo waxyaabahaas. marka isagana sidoo kale tixraac baan ku samayn karnaa. waxaan leenahay t capitala, kadibna tableka magaciisa tusaale waxaan leenahay content dash columns ayaan leenahay. isagana tablekaas inaan kalaamadiisa helna ayaan eeganaa haddii ay wax ku jiraan.
marka wuxuu yihi 3 column ayaa ku jira mid waa id horta isagana wuxuu soo dhigay intii column ku jirtay waxyaabahaas marka sidaas ayaad u tixraaci karaysaan oo website kasta aad ku heli kartaan xogihiisa iyo waxyaabahaas marka isagana waan baabi'in doonaa haddii la ka dhigo dash ayaan leeyahay cweyn column kadibna waxaan gelinayaa tusaale kaas ayaan gelinayaa contentigaas ayaan gelinayaa kadibna waxaan leeyahay dash dam marka wuxuu soo dhigayaa wixii ku jira ee data haddaba waxyaaba ugu muhiimsan ba waxay tahay datada meesha uu dhigayo ama xogtan meesha ugu soo garanayo kale marka haddii aan daaqadaha dhan iska wada xidhno waa kuwan haddii aan tagno imika halkan fileska aan tagno kadibna aan tagno homeka ama rootkaada jooga kadibna aad tagto sql map output imika 3 website ugu dambeeyay tijaabino kuwaas marka markii aan passworddiisa wixii helnay labadii ugu dambeeyay kuwaas imika kaasoo kale wuxuu samaynayaa database-kii waa kaas sessionka sql I ma sql late ayuu ka samaynayaa dhaamkana waa kan marka waxaan soo helno oo dhan waa kaas marka wuxuu ka dhigayaa excel buu gelinayaa marka halkaa dhaafi maayo waxaad samayn kartaa waxay tahay website-ka intaad tagto ayaad adminkiisa ama halka laga galo weli hadduu wordpress ku dhisan yahay haddii kale ayaad raadinaysaan kadibna aad tijaabinaysaan halkaas ayaan kusoo eegayaa saacadduna waxay maraysaa 3:08 oo habeenimo ah halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cashirkeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.